not do it for the likes. Make them know success don't come overnight. No make them know a substance over hype. Do it for the love, me not do it for the life. السلام عليكم كلّبا ألف باتا ABCD 1 2 3 وانيغو آفرتون مالين عصب أركت عصب كسو دو channel كيغا هداد كيش فيديو غان لايك يتابو راي هداربتنا ديبتد كومنت كوكو سوقر أركت سان عمل هدارتي سبسكرايب كليكو سي مانت فيديو كوكو سابسين هاي دايلما إيو confession دايلما وحاواي إلا تالي confession واقفو قرانايو confession كاهد انت كشيغايو داد كان والسو تليي وحان سارا انستغرام كيغي سناب شات كيغا مالنتا أربعة محاكلو ربنا dadka confessionka ii soo dirsado way isku jiraan ajnabi gaal iyo muslimba laakiin daalamarka badanaa waxa soo xushaa dadka luqadan ku hadlaaya yaqaano marka daalamarka dadkeena confessionka waa la isku jiraa okay all right ano bilaato qofkan koowaad wuxuu yiri waxa jirto naag indhoole aan ka taxadaro qofkan marka cuntada u keen badanaa cuntadeeda half baan ka cunaa inta ayada siinin subhanallah gaajada jirto ما قرنايو قف إن الله ما تعنتو أو عنتد سبحان الله الدنيا دي أنت هنولا الدنيا دي أنت هنولا أو وح آخرنا أو confession آخرنا تن متكلي إذا تقولي ماركن واحد تري confession وحنشعل هاي نينكي إنا الحاجيو ذو حاجي ذا يا مرة كقار وحنسك جوجيا عادة أو حنلقى pain killers تن حنوك لقو بابيو سان أسجا لما يسترو أي واحد أسمعه حنون بابيو مع عدد جوجيو هاي بلا تلا واحد كستمع كل واحد I don't know بتدهم معنا واحد 1 2 3 4 5 6 7 sometimes 3 sometimes 4 ما أفر معنا مسدح معنا ما تدهم معنا السوق ويسين حاجة تحدنا ومرك كليا قبل مركي عادة قبته يمركي ومشى تحي ومر سماه مركي أفرتن قبلي ها أنت ما أقوله مجنون معاك غلطان قف I know يعني تن سومالي هين I know تن اسكو ضد مني هين اسكو سنجيمو من أقرنا بقف كان I refuse قف كان كلامته confession وصادر صدا أسينا وحيري وحان هيستا حاس وحان هيستا side chick وحاوي ناك عدنك كويستيد إيو وحان هيستا صاحبتي دي هرته هالمرة وضع شيكستا وحا أيغا دن اسكو ميدكيهين وحيتا هاي أيغا اسمه جعلو self love مهيستان قف كمركو أسيغا اسكو كالسونين ونسربين أنيغا وحان جعل هاي ناغها كالسوني الدرادة هيسو سبحان الله أديك كلسوني درك ويسا مركا راسينيس قف كلسوني هيسنين ثلاث مرات بحية عنك صعبة قف كان كلمة حويري confession أني الذهب كي يوردن وحان أقضي حاجة يجي هرتي إن على لندن كو كان صدو وإمادي كدمنا ويجي تجي مركو باسبور كي هلاي هذا وحو هيستعفى من العصب وحون إسكاديجا أنا ويليس نولشيس كوجرين مركي لليه قبلها مركي خيلنا يعني إليه منا تراش نمك واقش كوان عمله نمك كان حمينا لكن نك استمر حمل لكن كان عمل واقشين أوكي كان واقشين قف كان قال وحو صادر صدر دعلم مركي اللي صادر ردك أنا مجع وبحصده سام مجع وذا رسمي أنا وشاجن أوكي قف كان حاول بحنايا عبد الفتاح وحيري السلام عليكم أبايو مجعي هو عبد الفتاح وحنشرا لباتن إيه شنصنو waxaan kala soo hadlayaa wadan Afrika ah abaayo aniga mar dhow waxaan guursaday gabar qurux badan oo haysato 3 caruur ninkeedii horeeta wuu ka geeriyooday ninkaasna wuxuu ahaa walaalkayga iga weyn familkayga ayaga codsaday in aan gabadhan guursado gabadha aniga way la qurxoon tahay damacna wuu iga galay maadaama uu walaalkay ka geeriyooday aniga aqli ahaan waxa ila noqotay inaan ilmahaas aabo u noqdo ayadana aan ka dhigto xaaskayga كو مركان اسقورسانيني ايادا وان ويديي وينو كو فرحسانيد او ميني اديدين كدي مركان اسقورساني دباتا بدن aan arkay dhibaatadaas oo wax kasto aan sameeyo ama ha ahaato gogosha ama ha ahaato dhanka dhaqaalaha ama ha ahaato dabeecad markasta waxay ila mitaashaa ila meel dhigtaa amal waxay ila meel dhigtaa walaalkaygii horeetay ilaaha uu naxariisto abaaya ma aqaan waxa sameeyo kalgaceel badan ma tusi karo oo markasta waan ka caroodaa markay saas sameeyso inaan hore u soconaan rabaa oo reerkan aan badsano oo anigana awlaad ay ii dhasho laakiin ma rabo inaan awlaad ka dhalo
qof markasta aniga soo xasuusinayo walaalkayga geeriyooday abaayo maxaa sameeyaa waan rabaa aniga guurkan inuu shaqeeyo waan rabaa reer inaan la sii dhisto waan rabaa laakiin igama dhigto inaan ahay nin ku filan ayada waxay iga dhigtaa nin markasta ka liito ninkeedii horeete oo ah walaalkayga abaayo fartuun taladaadaan sugayaa taladaada waa tan niyadda ii dejisaa ani jagadaas oo dhan waa la ii saaray marka qaar moogtaa taladeeda saas uma fiicno qof dhan wuxuu leeyahay taladaada niyadda ii dejiso walaalo gacli horta waxaa samaysa waa wax fiican aniga shaqsi ahaan inkastoo xoogaha fish and chips iyo suqaar iyo canjeer isku jira aan ahay micnaha dhaqankiina waa haystaa xoogahana magaaladana kusoo barbaaray waxaa sameynaysid wax maalin kasta arka ma aha in uu qof guursado walaalkiisa qof uu ka geeriyooday ama gabar ay guursato walaasheeda qof ay ka geeriyootay but diin ahaan waa mid la ogol yahay dhaqan ahaan waa mid la ogol yahay dhanka aniga u fiirina waxay tahay intay gabadhaas nin shisheeyaa keeni lahayd waxaa ka fiican qof ehelkaa inay keento micnaha ilmahaas kalgaceyl kusoo korayaan maadaama adeerkood loo keenay waa kaga dhowdahay qof kaleete markasta kalgaceyl aad tusaysaa maadaama aad already waalid u tahay laakiin ayadu way ku xun tahay inay markasta kula barbar dhigto ninkeedii horeete ayadana si haddii loo fiiriyo dhankeeda laga fiiriyo maybe sababtay kula barbar dhigayso ninkeedii horeete waxay tahay weli mayna himlaamin ama dhaqsi ku gashay micnaha amayna helin waqti ee maaragtay geeridii ku dhaafto oo maaragtay ku oyso isku hilmaamsiiso oo nolol ku bilaabato waqtigaas ma la siiyey for example haddii bil ka hor ninkeeda uu geeriyooday oo la yiraahdo walaal gacasi 3 caruur leedahay ilmahan ma kursi kartid kaliya hebel adeerkooda lagu darayaa dhaqsi lo pressure la saaray dhaqsi ku guursatay waa ka keeni kartaa taas markasta ee ku aragtaa wax samaysid inay kula barbar dhigto ninkeedii hore because weli qalbiga kama go-in weligiisna maskaxda ma ka baxayo because waa nolol ay soo martay waxa ila haboon waxay tahay in aad gabadha la fadhiisatid oo hal mar aad u sheegatid dhibka ku haayo dhibkaas oo abaayo ma ka helo walaalay gacabsa aniga kama helo marka ila mataashid ama ila barbar dhigtid walaalkayga horeete aniga waxaan rabaa nolol inaan kula samaysto oo tii horeete aad hilmaamtid yes asaga ma hilmaamaysid laakiin noloshaan cusub waa new beginnings waa nolol cusub nolosha cusub soo dhaweey ma liijin maxamed bk nolosha cusub soo dhaweey nolosha cusub soo xaajiyadaada heestaan aa u qaadaysaa maxamed bk iska taa tan u qaad libtaguul anoo helin libtaguul kalaba maaye alla qaliluulay waxaan ay la fiyo luul inta taas u shidid maaragtay waxa ku tira walaalaha gacliso nolosha cusub soo dhaweey hor u socono markasta hal aniga aan shakhsi ahaan ma jecli in lila mataalo qof kale oo la yiraahdo tusaale ku soo qaadana waalidkayga inuu yiraahdo ma jecli walaashaada heblaayo waxaas sameeyay maxaa waxaan u sameeyay because ani heblaay mi furtuuna ahay saas amal ayada nooga dhaadhacsi waxa tiraahdaa ani hebel mi abdifataaxan ahay abdifataax saani rabaa inuu kuu sameeyo nolosha inaan kula wadaagaan rabaa sababtaan tan usoo galana ma aha in adiga dhib kaa qaada keliya ani waxaan usoo galay rabid adiga ku rabo ka dhaadhacsii naagta that you need her, you love her, you want her ma fahantay markaas way soo jilceysaa ayada xataa waxaa laga yaabaa inaad isdhaysa ninkan wuxuu kuu guursada maaragtay inuu dhibaatadan ilmahan iyo waxaas le kugula soo koriyo uuna rabid badan kuu haynin tus naagta inaad rabid badan u hayso tus inaad hebel ka duwan tahay waxaad tiraahdaa samaanteeda fiiri walaalkay ilaaha naxariisto maanta dhan aad soo qaadaysid hadalkiisa iyo magaciisa iyo iska daa kaa nasto u duceey qalbiga uga duceey quraan u akhri niyada uga duceey ha kaa nasto dheh ha kaa nasto jannatul firdawsi inuu joogaa laga yaaba u duceey ilaahay ka bari inuu jannatul firdawsi ku raaxeysanayo aniga adigana noloshaan isla wadaagno halwadana jannatul firdawsi aan ku dhaanteeno marka anyways gabagabada waxay tahay ka dhaadhacsii rabidaada hadalaa wax lagu keenaa la fadhiiso hadal wax ku keenso ha ka cararin guurkaan sababaa u gashay sababtaas oo way ku qancisay midda kale tan waxaa rabtay ilmaha adeerka u tahay inaad kalgaceel tusto adigana reer dhisato intaas waa samay kartaa ilmahaas already waa reerkaaga xaaskaaga waa guursatay si fudud ha uga soo bixin walaalayaal adinkiina taladaa haysiin please comment ku soo qora shakhsi ahaan midaan rabo inaan idin weydiino waxay tahay adiga ilaah kuuma keeno laakiin walaasha ama walaalka hadduu geeriyoodo xaajigooda ama xaaskooda ma guursan lahayd shakhsi ahaan aniga gabar ilma dhalanin so
easy peasy yaa la yiraahdaa shaqadaas kuma jiro laakiin adiga walaal hadday kula dhalatay ama wiil uu kula dhashtay ma sameeyay hadii lagu weydiiyo taas comment-ka igu soo qoro because hadda lama arko waayii hore way jiri jireen in maaragtay saas magaca leedahay taa magaca ma garanayo walaal dalaal ma ahayn dalaal waa marka dadka la keeno magaca comment-ka igu soo qoro qofka kale qofkan kale confession uu soo dirsaday wuxuu yiri ninkeyga ima siiya attention unless aan jiranahay markasta waxaan jilaa in aan jiranahay sa attentionkiisa uu helo waa ogahay waxaas waa wax xun laakiin aadaan u jeclahay jecel xaal qaado walaalayaal inta ku soo gabagabeynaya intaasaan naxdin noogu filan dadkaan u soo duceeyay ilaahay dhibaatada inuu ka qaado ilaahay onka inuu ka baabi'iyo ilaahay maaragtay 1 2 3 4 afar maalin 5 maalin 6 maalin 7 maalin inay dul qaataan because it's not running maka ordayso haddaa ka hesho channelkayga like comment-ka iyo subscribe-ka ha iga hilmaamin midda kaleete ayaantaan waa i wayseen because break baan qaadanayay lima guursanin waxay iga badiseen fartuun ma lagu aroosan maxaa xalwad ma aqrisatay no wili meesha soo taaganahay maya ma jirneen alxamdulillah ilaahay caafimaad taamo isi on adiga hada breega iskaga baahnaa breegaan qaatay intale breeg ka qaatay way ii shidneed way ii kala kacsaneed Instagram marka Instagram-kayga haddaa haysanin intaa ku soo qoraya ama intaa soo saari doonaa insha Allah adigu igu darso qaraabada igu salaamo adios